nebigu asxaabta sidaa ku yidhi waxaan arkayaa buu nebigu yidhi madaa'in alciraaq ciidankii muslimiinta oo madaa'in alciraaq furtay oo gabadha shimaa bintu buqayla la yidhaah ee boqorka la dhalatay oo masar madow madaxa ku wadata oo baqasheedii fuushan iyo gabdhihii u khidmaynaya in hareeraha ka socdaan ayaa ciidanka muslimiinta gacantooda soo gasoon arkayaa buu rasuulku yidhi qurayn binu fatik saxaabiga la odhan jiray ayaa sare kacoo yidhi nebi allow ciidankaa maalintaa furanaya madaa'in alciraaq haddaan ka mid noqdo gabadha ay iga hor timaado gabadha aniga hallay siiyey inta goore goortaa imikadan buu yidhi cajiib markaasuu nebigu yidhi adigaa iska le muxuu yidhi adaa iska le buu yidhi gabadhaas raggii ag fadhiya markiiba eegtay markhaatiyo weeyaan mogtahay laba ninoo ag fadhiday buu horyaada markhaati ka noqdo haddaba arrinkaas bal sida khabarka nebiga ay ugu kalsoon yihiin dadkaasi eega innagana maanta muslimiintu xaya cala salaa kuma kalsoono salaadii baa la addimayaa suuquna waa macmuur maanta xaya cala alfalaax war liibaanta xaggeega u kaaleeya baa la leeyahay salaada liibaan uma arkaye maqaayadda iyo dukaanka uu furan xilligaa ayuu u arkayaa inuu ku liibaanaya xaajadiisa ku daboolayo yaqiinteennu waxay noqotay waxaan arkayno yaqiintoodu waxay ahayd hadalka nebiga iyo ilaahay ay ka maqlaan bay ku kalsoonayeen iyagu intaqala nebiyu calayhi salatu wasalaam nebiga adduunyada uu ka intiqaalay saxaabigii arrinkii nebigu maalintaa u ballan qaaday u haystaa abubakar baa taladii ummadda la wareegay khilaafadii cumar ibnu khadaab baa timiday madaa'inulciraaq baa la galay ciidankii madaa'inulciraaq ku jiray buu ka mid ahaa wallaahi waa halkii nebigu sheegayay buui waa taa magaaladu nebigu sheegayay ciidanka khaalid baa wata waa la jebiyey gaaladii gabadhow sideediiya faraskii fuushan masarkii nebigu ku sheegay wadata baqal cad bay fuushan tahay masar madow bay wadataa gabdha u khidmaynayaa la socda khaalid baa loo keenay saxaabigii baa sare kacoo yidhi yaa khaalid hiya liya buu yidhi tan aniga iskale buu yidhi tan kuma jirta buu yidhi khaniimadaad qaybinaysaa tan anaa iskale khaalid baa yaaba see ku yeelatay waryaa ma sunnaa nebigaad khilaafaysaa may tan nebigu aanu ii ballan qaaday buu yidhi goorma maalintii caynkaasuu nebigu ii ballan qaaday wuxuu yidhi kuma siinayo ilaa maragaad la timaada mooyaane laba nin oo labaduba ay ahaayeen ansaar muxamed baa labadaba la kala odhan jiray labadii nin buu soo kaxeeyey khaalid buu u keenay annagaa ka maraga bay yidhahdeen nebigu inuu ballan qaaday gabadhaas waa agaaga iska qaada buu yidhi khalaas khaymadiisii buu la tegey waa gabadh la dhalatay boqor kam gabadha imse barwaaqaysan tahay walaalkeed cabdulmasiix oo markaas sulxi qaatay oo macal ciidankiisii isdhiibay oo jizyadiina oggolaaday ayaa khaalid u tadarrucoo yidhi khaalidow mar haddaan sulxigii qaadannay gabadha walaashay ee boqoradda ii soo celiyey buu yidhi waxaad doontayna lacag waan isiine khaalid baa yidhi gabadhaa hortay baa la bixiyo nebigaa sii bixiye ninkaa halkaa jooga ayaa gabadhii qaato halkaabay isagaa la wareege isaga la soo heshii markaasuu u yimiday wuxuu gabadhaasaan la dhashay buuhi boqorkii baana waan isdhiibay gabadhaa ii soo celi lacag waxaad doontana sheego markaasuu fekeray wuxuu yidhi 10 min 100 10 imsa waa imsa 10 de kun shilin de 10 min 100 keen buulo lacaga u yaabay ninkii 10 markaas naam 10 u yaabay ma 10 min 100 ha 10 min 100 gabadha markaa baan ku siin markiiba uu soo saaray lacagtii buu siiyey gabadhii iyo waxay wadato dhan uu ku wareejiyey saxaabadii baa ninkii u timid oo la yidhi lacag intee leeg baad ku furatay gabadha dee 10 min 100 ma 10 min 100 ha waa kun weeyaane xisaab intaa ka badan inay jirto ma baaqaani buuhi anigu xisaabta adduunyada may oqoonin laakiin sida ilaahay wax looga qaatay iyo ku yaqaaneen innaguna maxaa naqaanaa maanta keenna miiga jooga kalkulateer buu ku sitaa jeebadda ka miiga jooga xoolaha leh neefka 70 buu marayaa 35 waa gaadhiga kiradiisii maxay waa ka miiga jooga yaqaan ka miiga jooga yaqaan xisaabta keenna magaalada joogana maxaad u malayn asxaabta rasuulkana xisaab may oqoonin laakiin maxay yaqaaneen iyaku sida ilaahay loo bariyo yaqaaneen sida ilaahay loo raali geliyo yaqaaneen sida ilaahay loogu dhawaado bay yaqaaneen asbaabta ilaahay u dhawaynaysa bay yaqaaneen
asbaabta ilaahay ka fogeynaysa bay yaqaaneen waxa ilaahay raalli ku noqonayay bay yaqaaneen meesha ilaahay raalli ka yahay bay marayeen hadday gacmaha cirka u taagaan ducadooda lama soo celinin iyaga darteed muhiimaddu waxa weeyaan adduunyadan ilaahay baana keenay ujeedada laynoo keenay waa inaan adduunyada ka qaadanaa diin dhammaystiran waa inaan garannaa ilaahay maanta inteenu jirnaa nin walba lacag intuu haysto uu garanayaa maanta laakiin inta ilaahay uu jiro ma qiyaasi karayna maanta saxaabada rasuulku way yaqaaneen wallaahi way yaqaaneen way yaqaaneen sacd ibn abi waqaas baa soo galay basra dad meel ku urursan buu arko meel taagan oo nin dhegaysanaya markaa buu sacad ku yidhi maxaad ninka u dhegaysanaysaan muxuu sheegayaa waxaa la yidhi abubakar iyo cumar buu caayayaa ma abubakar iyo cumar buu caayayo dhegaysanaysaan ha de markaasa loo baneeyey sacd waryaa buu yidhi maada abubakar iyo cumar caayi kara ha waan caayi waxaabay sameeyeen waxaabay sameeyeen wax ka daldan sindiiq buu qaa war dadkaas ilaahay baa raalli ka noqday camalka ogina way la tageene ka daa dadka cayda ka dhaafuul iska daa ka daa cayda war waan caayi iyo dhibaatay noo geysteen oo caynkaasoo markaasuu war cayda waad ka dayn oo waad ka dayn buu yidhi wailaa wallaahi haddii kale waan ku habaari buu ka yidhi habaarkayguna dhulka uma dhaca buu markaasuu yidhi waan ku habaariya uma nebi baa tahay buu yidhi bal habaarkaaga soo sii daa saasuu hadlay sacad bin abi waqaas wuxuu yidhi intuu gacmaha cirka u taagay buu ilaahayow ninka abubakar iyo cumar caayaya inaad abubakar iyo cumar raalli ka noqotayna waan raalli baan ka nahay ilaahayow adaa noo sheegay oo nebigaagii baa noo sheegay oo in janno loo bishaareeyey mubashiriin ahaayeen nebigaagii baan dhegahaygaa kaga maqalle jamaca halkaa jooga intay kala dhaqaaqin ilaahu ninka aayad iga tus buu yidhi wuxuu yidhi neef geela oo shilis oo meelay ka timid la garanayn unbaa dhulka sidaa uga soo baxdaa layidhi dadkiibaa sidaa u kala jeexday isagii intay u tagtay sidii harraati ula dhacaysay naftu kamay tegin ilaa naftu ay kaga saartay mooyaane naftii markay gow ka tiri ninkii ayay hashii oroday baa layidhi waa la daba yaacay geed bay sidaa uga daba wareegtay meelay martayna waa la waayey markaasuu sacad bin abi waqaas yidhi alxamdu lilah ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu yidhi hee dadkaasi iyakoo cuqdad abubakar iyo cumar aan u qaadin intay meesha ka dhaqaaqeen baan ku mahadiyaa buu yidhi leanna aayad bay arkeen khalaas inta ilaahay ay u jiraan iyaku way garanayeen iyaku leanna tarbiyadda nebigay ka qaateen alayh salatu wasalaam diin bay ka qaateen nebiga diin bay ka dhaxleen ilaahay cilaaqadiisay ka dhaxleen maanta muslimiinta caalamka cilaaqadaasay nagu yar bas wax kasta muslimiintu maanta way haystaan asbaab caalamka asbaabta u badan maanta muslimiinta haysta cadad ahaana haddii la eega tirada muslimiintu ma yar tahay ma yar laakiin tayadeennii baa yar maanta saa darteed bay culimmadu leeyihiin ummaddan waxaa loo baahan yahay mar labaad in iimaanka iyo diinta loo jadiidiyo